ugu horeysa horta magaalada Jijjiga biyaha magaalada Jijjiga oo kale waxoogaa in hawshooda miisaanka ay leedahay la siiyo inay fiican tahay sababtoo ah caasimadii magaalada oo Jijjiga ah oo biyo la'aan ama biyo ay qaliil yihiin wax fara badan oo sheegi karno dadka u sheegi karno xagga biyaha iska yaraanaysa marka dadaal fiican xafiisku inuu sameeyo aan la socdaa laakiin mararka qaar waxaad leedahay strategically malaha ciladaha in la fahmo oo la sii hordhigo aad maaragtay dadaalkii loo baahnaa lama geliyo ama ha ahaato technical capacity-ga ka jirta xafiiska shaqaalaha hawshan qaabilsan cilado waxaa jira soo laalaabanayo oo marba la odhanayo saasaan moodayno saasay noqotay halkaasaan saa moodayno arrimaha noocaasina ma habboona in saa noqdaan in wixii laga sii fikiro strategy lagu hogaamiyo ahead of time la ogaado ciladaha iman kara ama leyd ha noqdaan waxyaalo kale in intaas laga sii baaraandego qorshe lagu galaa fiican laakiin kolkay caqabad ka hor timaado haddii turxaan bixin xooga la saaro marka waxoogaa waxaan qabaa arrintaas inay dib u dhigtay mashruucii xilliguu dhammaan lahaa iyo dadka ka faa'iidaysan lahaa magaalada intaba taasoo kale mashruucii ugu weynaana wuu ahaa maaragtay flagshipka inoo ahaa yuu ahaa taa oo kale guldalooyinka ka jira in la qaato oo la saxo sidoo kale waxaa jirta xagga mashruuca Jijjiga anigu celinaya waxaynu u sameynay mashruucan phase 2ga ee biyaha in coveragekii magaalada ee biyaha helaysa ay kor u kacdo marka waxaa dhacay oo kale qaab hadda uu bedelay uun kii hore ee jiray maadaama kii hore uu fadhiistay marka waxma soo kordhiyay haddii mashruucii hore ee biyaha magaalada soo gelinayay muxuu ahaa uu hoos u dhacay kan kale iminku yimaado jujug meesha joog bay noqonaysaa marka waxay ahayd in biyihii soo gelaya 10 kun oo hore oo magaalada heli jirtay haddii 10 kun oo kale ay ku soo birto shacabka magaalada uu kordhayo kolka wax ma soo kordhay laakiin haddii 10 kun soo korodho oo 10kii hore ay xidhmaan haddii inta dadayda faa'iidada laga reeyay mashruucii ma imanayo marka arrintaa bal hoos loo eego ahmiyadda ay leedahay la siiyo caasimadda maadaama yahay priority-gana la siiyo oo resource-ga la hayo la geliyo inta badan si kolka su'aashu timaado jawaab ku timaaday laakiin dhibtana taagan oo waxaan u baahanahay waxa in la yiraahdo oo proactive la noqdo xukuumadda la soo ogeysiyo in lagu dadaalo ila fiican si specific mashruucaas maadaama mashruuc dhamaadeen noo qoran haddana weli xarigaan ka jirin san waxaan uga jarlaanahay maadaama oo weli ay dhibaato ka jirto ahmiyadsiinta mashaariicdii hore ee dhamaaday laftigeeda in hoos loo eego waxa kamid ah mashaariicii hore ee hadda ka hor multi village-ka ah ee shaqayn jiray ceelashii intoo dhan baa noqdaan marka in wixii hore ee la sameeyay xoog la saaro oo miisaanka la saarayo kuwa cusub in la sameeyo kuwa hore in la saaro sababta taas waxay keenaysaa coverage-ka aan sheegayno dhibaato badan baa ka imanaysa waxaan ka qaadnay 19% ilaa iyo 42% ama hadda markii la sheegay from 42 to 45 sanadkan gudihiisa taa waxay ku salaysan tahay assumption ah mashaariicdii hore way shaqeeyaan kula dhaamoole filtu birqod meelihii kale oo dhan wixii mashaariic ahaa ee multi village-ka ahaa way shaqeynayaan intaasoo kun oo qof baa ka faa'iidaysta wey haddii mashruucii laakiin uu shaqeynin intaasoo qof kama faa'iidaysto marka kan cusub ee dambe samaysay percentage-ka aad ku darayso waad iskaga daraysaa uun mooye additional people oo cabi way jiraan laakiin kuwa kala meesha ka baxay marka taana in systematically hoos loo eego oo daatadu ay naga noqonin data oo ku salaysan mashaariicda dhamaatay completerka ay noqdaan data ku salaysan dadka ka cabaya actually kuwa shaqeynaya functionality inuu asaas u noqdo datada aan diyaarin laftigeeda hadhow haddii kale waxay iman doontaa caqabad ama halka caqabadaha ka jira hoos loo eego yaa la quman taana waxaa koow dhibaatada weyn u arkaa waxa weeyaan uu awoodda sidii la sheegay dhaadhicinta awoodda xafiisku haddii heer degmo xitaa loo heer gobol laftigeeda in ka jawaabidda markay dhibaato timaado iyo diyaar garowga loo maartay maintenance-ga ahmiyadda loo baahnaa in la siiyo inta hadda waxaa laga hadlay araarso dhowr ceel sheekh xasan wuu sharxay ugu yaraan at the end of the day ceelashiina fadhiyaan wuu qiray wuxuu ka hadlay uun waxa ka xun waxay kala yihiin buu ka hadlay laakiin qolada soo jeedisana waxay sidii afar ceel baa laga yaabaa hal ceel la isku diidan yahay afar ceel shan ceel baa shaqeyn afar ceel baa shaqeyn way macnaha marka afartii ceel markaas sababaha inuu shaqeyn waa la sharxay taa tuuba ka xun taa halkaas ka kharin baa leeyahay haddii ay week tahay ama dhowr cisho ay tahay waa la garan karaa haddii bil iyo laba iyo saddex iyo biyo la'aan dadku noqdaan oo wixii la dhibta haystaana ay yar tahay dee markaa systemkeeni problem ka jira wey systemkii maintenance-ga inama fadhiyo wey ama diyaar garowgii qalabkii meeshii u yaallo
ومركا إيبان للدونين وحالها frequently صار نقدر أنت لتراكوبة inventory لسمايو اللي هذا توبوينكا حالها نوع سبير كده لوريجو هير قبل اللي جيو كوي توانك قبل تيمم maintenance كشقي وقبل هذا يتشوجان مركا لح دي بلود وحي عليسي حفيزك كوسو دعو لماله لكن ويران لح بلود كله إن the team قبل كي تشوجو أو دبعتها دعوة بام يردو حمادي إيو هجاتية إن تيران أرنتا إن استراتيجيكالي قرش اللقات إني مهم توان قبا توابرك ضدك واحد سكيمس كان فانك كشقيسين هنا ما دام علدا نعيسة أروح بلانتاي almost ميل عن مرة أنا وهذا ما كان كرمات تجو وبامبا حمادة للسوق يا الأورينين أما أنا دلوقتي كتير ويرتاي مركا حكوتو سيسا سكيل سيتكا ضدك واحد بينتنس يكوتشرا إيو أدو هصيو وحلاقي جنريتر كإلا لو تلقى ساعات قارين وشقيو إلا بختيو إلا دميو أو قفكوا في هالسنين تيم كالكا تشوجا وإسكا وضيان مركا أقونهانا دباتها جرتي هوستي مركا وحيالها صاروا نضوي كم تاي ميلو بود مرتو بامكا الربيين يساوي استعمال واينو لأنه قرحي ساسا يا لغيره مركا تانا وتريننج إيشو دي مركا إن تريننجكا يا مينتيننسو هدي بيها إسكيم كونا لسعونين وحن عصوبة إنه كشقينينا هير دبولكي بيها لو بهنا كورو ما قاضيو maadaama kuwii hore meesha ay ka baxayaan marka ahmiyadsiinta mashaariicdii hore ee biyaha ayna shaqeeyaan meelo badan oo shacabku way soo celcelinayeen si guud adeeg bixinta sanadkan xagga degmooyinka timaanba loo saari doonaa caqabada aad weyn baa ka jira maamulada gobolada ee xisaabtanka hadda bilaabmaya waxa weeye heer degmo miisaaniyadda si loo isticmaalaa iyo adeega laga bixiyo degmooyinku waa sidii waa cabasho inta badan soo baxda oo shacab ka timaada laakiin hadda in hoos loo eego oo la galo u baahano bal miisaaniyadda 40% dhacaysa gobolada tagaysa halka laftigeeda sidaan halkan aan ka hadlayno wax cusub iyo bilowgeeda mooyee kuwii hore inay shaqeeyaan intii laga bala geliya su'aasha ay iman doonta sanadkan xoog gal saaro baahnay taaban taxfiiskan la xiriirina wixii hore qacanteena aan ku sameynay ka shaqeysiintooda iyo ka warhayntooda halkoodana in xoog la saaro yaa laga faafaahin hadii loo baahdo waxa laga yaabaa shirar gaar ah inaan u baahanahay si aan sula eegno strategically xafiisku inuu hoos u eego bal miisaanka u dhaxeeya mashaariic cusub uu qabanayo iyo kuwii hore focuska la siinayo halkaas aan u dhibaatada weyn aan ka arkaa iyo dhaadhicinta awoodda halkan kama maamul ka dhammaan skiimka charity ku yaala banka ka xumaada jijiga kama diri karno waa structural problem marka in goboladii loo dhaadhiciyo badan xumaada jira tuubooyin xumaanaya jira generator xumaanaya jira oo loo baahan yahay shaqaale ka shaqaysiya marka wixii u baahan dayactir weyn oo xafiiska wataan sheegayo waa soo gaarayaan kulli waxa soo gaaraya laakiin haday jiraan waan isla eegi doonaa waxa lagu qaban karo degmooyinka iyo xagga incapacity kor loo qaado in hoos loo eego ayaa arintaas ya muhiima dhanka ceelasha oo kale ceelashii la qorsheeyay in xoog la saaro xogaa leverage yar waxa jira xafiisku xaqiis ka imanayo ceelal farbadaan cusub oo la bilaabay marka ceesha laftigooda equity issue maadaama iman karto in la soo ogeysiyo oo xafiiska qorsheynta iyo xafiiska madaxweynuhu ay ogaadaan marka xafiis ceelasha hadii 20 ceel qodayo oo bahwadaag ka imanaya 20 ka ceel la isla ogaado maadaama ay galayso sidii qorshihii guud ee la sameeyay oo kalsooni ay keenayso hadda cilad baa jirta aanu malihi laakiin si guud hadii aan ceelal ansixino ceelaka ansixinada gobolada kala tagayaan iyo degmooyinkii iyo prioritization-ka wixii ku salaysan yahay in isla ogaado waa ugu yaraan xafiiska qorsheyntu oo loo ogaado iyadana waa muhiim sababta xafiiska qorsheyntu wuxuu eegayaa equity-gina uu eegayaa halkii dadku baahi badan buu qabaa biyaha halkee muhiim in la geeyo arrinta ana inaan isla ogaano iyadana waa muhiim inaasan ku soo koobi lahaa ma santa shakhsan